السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الرزاق أحمد halkaan naga daawaneysana waa Cabdirasaaq Axmed Official. Kusoo dhawaada mawduuceena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa sida perfect money loo sameysto perfect money account oo online ah qaabka loo sameysto. Perfect money-ga asiga waxaa weeyaan waa account online ah wuxuu la mid yahay sida PayPal account oo kale. Asiga waxaa loo isticmaali karaa hadba wax walbo aad u baahan tahay ku isticmaali kartaa. Tusaale ahaan IQ option-ka qaabka forex oo kale waa ku isticmaali kartaa. Perfect money waa account online ah. Perfect money asiga lacag waa ku shuba kartaa, account waa kaga shuba kartaa, account waa kusii shubi kartaa, hadba waxaa u isticmaali kartaa yacni gudbiye ahaan camal weeyaan. Marka waxaan rabaa inaan kula wadaago qaabka loo sameysto. Aniga telefoon ayaan isticmaalayaa. Marka koowaad marka perfect money-ga sameysanaysid waxaad sameynaysaa marka perfect money-ga rabtid inaad sameystid kow setting-ka ayaad tagaysaa. Waxaad tagaysaa Chrome-ka maadaama telefoon ayaan isticmaalayno Chrome-ka tagaynaa. Chrome-ka tagaysaa. Okay, Chrome-ka markaa tagnay waxaan qori doonaa perfect money ayaan ku dhufanaynaa. Baakana waxaan kusii dhufa doonaa perfectmoney.com. perfectmoney.com ayaa click ku leedahay. Okay, perfectmoney.com markaa ku dhahdid page-kan ayuu noo soo saaraya. Welcome to a new generation of internet payment system. Waa online yacni account online ah. Annaga waxaan ku dhufa doonaa qaybtan oo set sign up maadaama inaan rabno aan sameysano. Okay, sign up noogu dhufo. Markaa sign up ku dhufano waa kana wuxuu noo soo saaray information create an account waa kan. Okay, create an account waa kan. Create an account markaad tiraahdid waxaad sameynaysaa account name magaca account-ka kuwaad gelinaysaa. Okay, anaga waxaa geli doonaa somewhere magaca adiga assumption cali wax le iska gelinaysaa. waa gelinay. Waxaa gelinaynaa magaca account-ka kadib haddana magacaaga full ah oo saddex magacaaga full ah aad gasho doontaa. Hadda waa example magacaaga full aad gasho doontaa. Kadib city caasimadaada gashanaysaa. Caasimadda meesha aad joogto waddanka aad ku nooshahay caasimadiisa. Kadib markaad gashatid address-ka muhiim waaye. meel walba account walba aad sameysanaysid address ayaa laga rabaa. Okay, address-ka gelinaysaa. Address-kaaga waxaa leedahay address-ka meesha aad degantahay address-kiisa ayaa gashan doontaa. Tusaale ahaan Holland District oo kale leedahay. Choose country waddanka dooro maadaama caasimadda aad soo gashatay haddana waddankii ayaa dooranaysaa. Information-ka xogta saas u buuxinaysaa. Okay, anaga waddanka waxaa gelinaynaa Soomaaliya joognaa laakiin assumption yacni qof walba meesha uu joogo ayuu gashan doonaa. Soomaaliya. Okay, Soomaaliya markaad soo gashatid postal code. Soomaaliya postal code ma laha. Tusaale ahaan 1 2 3 4 oo kale leedahay. Postal code-ka wax saas saameyn kuguma sii laha. Waxa saameynta ugu badan laga rabi doono waa email-ka iyo number-ka. Email-ka oo kale email-kaana gelinaynaa. Email-kaana geli doonaa. Okay, email-ka waan gelinay. Kadib waxaa gelinaynaa form number-ka waxaa leenahay form number-kaagana waa gelinaysaa. waa muhiim. Okay, qaybtan waa kasoo baxnay. Waxaad dooranaysaa account personal ama account business ah. Adiga ayuu ku quseeyaa. Annaga account personal ayaan sameysanaynaa. Account personal-ka tigta saaraynaa. Kadib waa kana information-ka xogta soo gudbisay. Password geli oo ku dhahay. Password-ka ayaa gelinaysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tusaale ahaan. Wuxuu ku jiri ku celi password-kaaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Markaa ku celinay kadib wuxuuna leeyahay waxaa qori doonaa waxa meeshan ku qoran. Waxa meeshan ku qoran waa nambaro.
nambaro waaye, nambaradaas aa geli doontaa waa qoreysaa. Okay, hadda waxaa waaye 5 eber 1 20 waa sidaas. Okay, waxaa leedahay I agree ayaa leedahay. I agree aan ku dhufano kadib register ayaa leenahay. Hadday wax qaldayn asaa noo soo saari doono. Okay, waxaa qaldan oo dhahay password must be contain both letters and numbers. Passwordka anaga nambaro bisa ka dhignay, nambaro iyo xarfo. Marka hadda xarfo iyo nambaro isku darayna abdi aan hormarnayna 1 2 3 4 5 6 7 8 oo ku celinayna abdi 1 2 3 4 5 6 7 8 waa gelinay. Mar walba haddana waa naga soo bedelay. Markuu naga soo bedelay waxaan leenahay okaadi register aan ku celinaynaa. waxaynoo qaldan yahay ujeednaa, laakiin waxaan rabnaa inuu naga soo bedelo nambarkan, nambar macquula oo la arki karo inuu soo sameeyo ayaan rabnaa. Okay, waxaan sameyn doonaa oo passwordka ku celinaynaa. abdi 1 2 3 4 5 6 7 8 haddana waa ku celi doonaa abdi 1 2 3 4 5 6 7 8. marka waxaana qaldaya waxay tahay xarfahanaan marmar aad loo arkeynin. xarfahan marmar aad looma arkaayo. marmar marka waa qaldami karaan. hadday qaldamaan asaa kugu soo celinaya. haddana wuxuu ku leeyahay xarfo kale oo kugu soo bedela kadib wuxuu ku leeyahay geli. tusaale ahaan hadda anaga xoogaa xarfaan aad uguma jeedno, register ayaan leenahay. xarfa aad uguma jeedno, waxaa gelinaynaa waxa inta aan ka aragno. waxaa ka aragnaa 0 4 6 1 1 1 2. Okay, wuu diidayaa, wuxuu leeyahay wrong. Okay, waa ku celinaynaa ilaa oo number macquula nooga soo saaro. Okay, waa kan hadda password fiican aan gashanaynaa. number aad loo arki karo noo soo saaray 1 2 3 4 5 6 7 8. haddana numberkii aan ku celinaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8. markaa gelino kadib hadda wax la arki karo waaye. number la arki karo waaye. hadda waxaa waaye waa 5 9 6 eber 3. Okay, agreed kadib register. Okay, waan sameysanay. passwordka save gareeyo na dhahay. haddaa rabtid passwordka iska save gareysanaysaa, haddaa rabtidna waad ka soconaysaa. Okay, waan sameysanay akoonka. welcome to the community of perfect money. kusoo dhawaada ayuu ku leeyahay dadka perfect money isticmaalo ka mid noqo. Okay, marka waxaan sameynaynaa welcome to waxaa waaye welcome to community of perfect money oo inoo soo qoray. marka hadda ciwaankii baalkii waan sameysanay akoonka. waxaan u baahannahay inaan log in gareyno. Okay, meeshaan log in ayaan tegaynaa. log in aan ku dhufanay. log in markaan ku dhufanay automatically wuxuu soo gelinaa anaga gmailka aan soo sameysanay. wuxuu noogu soo dirayaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg member ID. gmailkaaga marka gmail kuu daaran ha noqdo. Okay, hadda waan fiirinaynaa. gmailkeena member ID ayuu noo soo diray. kadib member ID ga ayaa gashan doonaa. kadib saasaa u soconaynaa. Okay, perfect money waa kana intuu noogu soo qoray. Okay, member ID ga waa kan qeybahan hoose waaye. qeybaha hoose member ID ga kusoo saara. Okay, waan raadi doonaa member ID. your member ID asaa soo qoraayo. Okay, member ID
okay oo noo soo baxay personal member ID-ga waa kan. kadib asaa soo qaadanayna waa soo copy gareynayna kabacdi meesha ku paste gareynayna. okay away meesha account-keena member ID-ga meesha kugu qorantaa tagaysaa kadib waa gelinaysaa wax meesha kugu jira marka paste ku leenahay. okay member ID-gayga waa kan password-ka asaa automatically isku geliyay. kadib aniga waxaan laga rabaa nambaradii waa kan nambaradii 10 numbers kaas ayaga mar walba waxaa laga rabaa waxa meesha ku qoran inaad kusoo qortid. hadda aniga meesha waxaa ii muuqdo 8 4 9 7 6 miya wax saas oo kale waa ku fiiri doonaa kale hadduu qaldan yahay authorize aan leenahay hadduu qaldan yahay asaa soo diidi doono waa ku celinaysaa markaas. okay wuu saxan yahay account-keeni waa kan hadda account waa kuu samaysay perfect money account waa kuu samaysay markaan waxaa kugu soo qoray log out waaba account waa ku jirtaa mogtaa marka iska xiri sidoo kale meeshaan log out dhehaysaa hadday arabta haddaa wax deposit gareynaysid waa tan lacagta haddaa wax deposit gareynaysid waa kan haddaa withdrawal samaynaysid waa kan marka sida account-ka u isticmaalaysay oo kale marka lacag diraysid oo kale send money waa kan marka account-kaagii caadiga ayaa ku jirtaa waa kana marka information-kaagii iyo xogtaadii iyo xilliga aa ciwaan ka samaysatay iyo member ID-gaagii iyo waxaas dhan meesha kugu qoran yihiin. marka my accounts account-nadeedii waa kan account-kan oo kale markaa fiiriyo marka account-kan fiiriyo send money exchange view statement waxaas oo kale kusoo qora yacni account-ka hadda waa kan wax walbo 0 marka account-ka hadda uu ku samaysan yahay qaabka ugu fudud oo account loo samaystahay waa sidan. marka waxaa soo wada cashiro kale oo la xiriiro sida qaabka loogu deposit gareyn karo IQ option-ka adoo perfect money isticmaalaysid qaabka adoo perfect money isticmaalaysid lacag bangiga inaad kaga soo shubtid perfect money ugu shubaysid ama perfect money lacag kugu jirta banki account-ka aad u celin lahayd. ma raba inaan ku dheeraado video-gan intaan iga egyahay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddoo video-gan ka heshay like saar channel-kana subscribe saar aad iyo aad ayaad mahadsantahay inta aan halkan iyo